السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha ku xidhan kanaalkeena waaye sheeg waa mar kale iyo taxanaheennii baybalka maxaa ka run ah waxaanu ka sii qaadi doonaa cutubka 16 ilaa aayadda 9 ilaa 20 12 aayadood ee ugu dambeeyay buugga Markos waxa ugu dambeeyay cutubka 16 kaasoo qora in Ciise Masiix markii meedkiisa la aasay ay haweeney Maryam Magdala la dhaho iyo laba dumar oo kale xabaashi Ciise Masiix soo booqdeen goortay xabaashi galeen waxay arkeen nin dhalinyar oo midigta fadhiyo oo khamiis cad gashan markaasay aad u naxeen ninkaasna wuxuu u sheegay in Ciise Masiix meedkiisa naftu ku soo noqotay wuxuuna faray in ay u sheegaan xertii Ciise Masiix in ay aadaan magaalada Galiili meeshaas oo ay Ciise Masiix kula kulmi doonaan laakiinse waxa dhacday in dumarkii aysan cidna waxba u sheegin buugga Markos baana qora ninnana waxba kuma ay oran maxaa yeelay waa ay baqeen Markos cutubka 16 aayadda 8 ilaa iyo qarnigii 19 waxay aqoon-yahanadu isku raacsanaayeen in buugga Markos uu ku dhamaaday aayadda 16 cutubka 8 ee kore taasoo sheegtay in dumarku iyagoo baqaya soo noqdeen oo aysan cidna wax u sheegin balse qorayaal dambe oo aan ku qanacsanayn in dumarku aysan fariintii gaarsiin xeertii Ciise Masiix baa 12 aayadood laga bilaabo aayadda 9 ilaa 20 ee dambe ku daray kitaabka baybalka si ay sheekada u dhamaystiraan ugana dhigaan in dumarku fariintii gaarsiiyeen xeertii Ciise Masiix waxayna qoreen waa berigii maalintii u horeysay ee toddobaadka ayaa Ciise sare kacay oo markii hore wuxuu u muuqday Maryamtii reer Magdala iyadu waa tagtay oo waxay u sheegtay kuwii la joogi jiray xertii Ciise Masiix iyaguna xertii goortii ay maqleen inuu nool yahay oo ay aragtay way rumaysan waayeen Markos cutubka 16 aayadda 9 ilaa 11 halkan qoraagu wuxuu sheegayaa in haweenku fariintii u sheegeen xertii halka markii hore buuggu sheegay in haweenka ay baqeen oo ninna waxba ku odhan cilmiyahano badan baa aaminsan in 12 aayadood uusan qoraagii hore ee buugga Markos qorin waayo midda koowaad 12 aayadood lagama helayo qoraaladii hore ee qadiimka ah sida Cordicus Vaticanus iyo weliba qoraalada wadaadadii hore ee Kiristaanka sida Clement, Origen, Tertullian, Kerian, Cyril iyo kuwa kale taasna macnaheedu waxa weeye in aayadaha dambe ay yihiin kuwa gadaal lagaga daray oo aysan markoodii hore kitaabka ka mid ahayn midda labaad aayadaha waxa laga helayaa ereyo badan oo qoraagu uusan hore u isticmaalin 18 ka mid ah ereyada ku jira maaha kuwa qoraagu kitaabka Markos hore u isticmaalay halkaas waxa laga arki karaa in ereyo badan oo aayadaha ku jira uusan qoraaga buugga Markos lahayn oo uusan qorin midda saddexaad markaad si fiican u akhriso cutubka 16 ee buugga Markos waxaad dareemaysaa in buuggu ku dhamaaday aayadda 8 halka 12 aayadood ee dambe aysan meesha ku habboonayn oo ay sheekadii hore loo sheegay dib u sheegayaan midda afraad arrinka xusida mudan baa ah in 12 aayadood ay sheegaan waxyaabo la yaab leh waxay qoraan in Ciise Masiix yiri calaamooyinkan ayaa la socon doona kuwa rumaysta magacayga ayay jinniyo ku saari doonaan afaf cusubna way ku hadli doonaan abeesooyin ayay qaadi doonaan oo haday cabaan wax lagu dhimanayo waxba ma yeeli doonto gacmo ayay kuwii buka dul saari doonaan wayna bogsan doonaan Markos cutubka 16 aayadda 17 ilaa 18 waxa dhacday in wadaado badan ay sun cabeen iyagoo u malaynaya in aysan dib u geysanayn oo mucjiso noqonayso balse waxa dhacday in suntii iyaga disho ugu dambeyntii waxa xusud mudan in qoraalada qadiimka qaarkood ay buugga Markos u yeelaan dhamaadyo kale waxayna sheegaan aayado kale oo aan ahayn 12 aynu soo sheegnay waa aayado nooc kale ah aayadahaas waxa ka mid ah oo markiiba waxay u warameen Butros iyo saaxiibadiis oo dabadeed Ciise baa u muuqday iyaga wuxuuna u diray bari iyo galbeed si ay dadka u gaarsiiyaan badbaadinta in buugga Markos uu yeesho dhamaadyo kala duwan waxay ina tusaysaa in dadku buugga faraha la galeen waxay rabaanna ku dareen arrimaha aynu kor ku soo sheegnay waxay keeneen in tarjumadaha casriga ah ee kitaabka baybalka ay aayadahan korkooda ama hoostooda raaciyaan qoraal digniin ah taasoo shaki gelisa sax ahaanshaha aayadaha waxayna qoraan in aayadaha aan qoraalada qadiimka ah laga helayn waxaanu kaloo soo qaadan doonaa Matthayos
aayadda 13aad cutubka 6aad aayadda 13aad oo jiraabada ha noo kaxayn laakiin sharka nagu duu waayo boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh. aayadda kore waxay tahay kitaabka Baybalka tan ugu caansan waxaana lagu qiyaasaa in ay tahay oraahda dunida ugu caansan marka laga yimaado shahaadada muslimiinta. aayadda kore waa duco taasoo qof kasta oo Kiristaan ah xifdisan yahay axad kastana kaniisadaha badankood laga qaado, laakiinse aqoon-yahanada badankood waxay isku raacsan yihiin in qaybta dambe ee aayadda waayo boqortooyada iyo xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa aamiin aysan kitaabka ka mid ahayn oo gadaal lagaga daray. aqoon-yahanadu waxay aaminsan yihiin in markeedii hore ahayd duco kitaabka geeskiisa ku ooleyd, balse qorayaal dambe ay kitaabka ku dareen iyagoo u malaynaya in ay tahay aayad kitaabka ka tirsan.